سيدا درتيد بار رسولك عليه الصلاة والسلام وحليها استعينوا بأموركم الكتمان وروحي إلهي وهبة إذين سيئي مالك أوكليا ما هنا وحي إلهي هبة إذين سيئي قرصدا لأن لكل نعمة فإن لكل نعمة حسود نعمة كستو إفكت الله إذ أمبا كيو أتو محروقه حاسد كوأ marka nicmooyinkiina had iyo jeer asturta ayuu nabigeenu عليه الصلاة والسلام marka ruuxu had iyo jeer quruxdiisa iyo awoodiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo inuu mar walba fagaarayaasha isla soo taago ma fiicna in badan waxa anigu aan arkay ilmo yar oo caruuraho intuu raqam waaxid ka galay iskuulka macallimiintii intay fagaaraha soo joojiyeen isla maalinta wixii laga bilaabo aqoontii ay ka masaxantay ama dugsigiiba aadi kari waayo aqoontiiba la nacsiiyay anigu waxaan goobjooga ku yar oo aan dhalay ayaa 3 jir ayuu caruurta ku raacay madrasadu aaday malcaamada markaa isagu ma dhigta uu dhageystaa sidii sooga dhageysanaya uu 5 jis caruurtii akhriyaysa ka xifdiyay dadkii baa yaa wax ma sha Allah ila markii dambe ilmihii madrasadii waan ku kari waayay caruurta hadduu raacana intuu ka leexdo gudaafad fadhiisanaya habeen kaliya 5 jisba maslaxdiisii ay ka dhiliid garoobeen habeen kaliya ay maskaxdiisa ka dhiliid garoobeen marka bahashan ishu waa halis weeye waxaan uga hadlayaa aqoonaan u leeyahay weeye oo in badan way soo martaa marka qofka muslimka ahi inuu maxaasintiisa qarsado madaaristan ilmaha xayeysiiska looga dhigayana in laga daayo madrasadii buu rabaa inuu xayeysiis u samaysto ardaygii ugu fahmada badnaa ayuu soo joojinayaa meel fagaare dabadeedna markuu ka degaba masrixii ilmihii maaha markiibuu isbedelayaa marka goorta haddii ilmaha shahaado la siinayo oo ilmahaagu uu ku yidhaahdo aabow wankan galay ha u ogolaanin inuu isagu fagaara istaagee adigu u soo qaad xataa wixii la siinayo adiga waalidka intaad tagto wixii jaa'isad la siinayo wixii hadiyad la siinayo adigu intaad ilaahay cuskatooda aayaadkaaga iska akhristo u soo qaad laakiin caruurtiina fagaaraha ha keenina oo wixii ilaahay haybad siiyey yaan looga dhiginin xayeysiis iskuulkaasa caruurta si fiican wax u bara si loo yidhaahdo darteed ba inta badan caruurta magaaraha u keenaan hadhowna waxaan xasuustaa waqtigii siyaad bare sheekh cabdirashiid cali suufi baa wuxuu kaxeeyey inaan 7 jir buu ahaa sheekh cali dheera uu ahaa nin garanaya waxaa la geeyey sacuudiga sacuudigaa la geeyey 30 qur'aanka caalamka isagaa raqam waaxid qaatay caalamka oo dhan 7 jir baa ilmahaas markii dambe ee meeshii laga soo celiyey madaxaba bura ka soo baxday ilmihii yaraa madaxay bura ka soo baxday caalamka oo dhan baa TV-ga laga daawanayay raqam waaxid ku noqday marka fa inna likulli nicmatin xasuudun nicmo kastaaba xaasid bay leedahay marka haddii ilaahay nicmo ku siiyo nicmat almaal ama nicmat alcilm ama nicmat alquwa wannashaat ama nicmat alawlaad ama nicmat aljamaal hadduu ilaahay ku siiyo asturo lagulama qabo asturo haddii kale waxaanad hadhow mahadinaynin baa kaaga iman doona waana ta uu ina barayo nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maandhooyinow markaad meeshaa tagtaan idinkoo sunsumaya oo 11 nin oo geedkaa wada laaleega aad tihiin albaab keliya ha ka gelina wadkhuluu waxaad ka gashaan min abwaabin mutafariqa albaabo kala duduwan ka gala waa sirta nolosha haddaanad qur'aanka kala soo bixi karaynin waxaa tahay kamahali ximaari yaxmilu asfaaran qur'aankani طب النبوي iyo طب المادي iyo طب الروحاني intaba wuu isugu jiraa marka nabiyullaahi yacquub ka barta 10kan uu ina barayo waa taxadar can alcayn caynta inaad ka feejignaato markaan saa leeyahay mar walba haddana yaana cabsi mar walba ha cabsanine adigoo ilaahay isku xiraya asbaabtii lagaga xijaabanaya isha la kaale وأذكارت الصباح أذكارت مساء إيه ويسداد إيه صدقة وحأوقف عن عذر كل جد ويا وحويا صدقة إيه
salaad labadaa ruuxu hadduu ilaashado walaa cayn baan karayn walaa sixir baan karaynin beri baa waxaa aan idinka yaro sheekeeye naag waxaa ii timi naag baa ii timi waxay iga sheekaysay naagta kale a uga sheekaysay ninkeeda ayay doonaysay inay sixir maxabbo ah u samaysato oo uu jeclaado sixir maxabbo ah bay u samaysanaysay mid sixiroole ah ayay islaan sixirooley ah ayay 4 jeer ku noqotay oy leedahay ilaa hadda wax isbeddelah ninkii kuma hayo markii dambe islaantii waraysato waxay tidhi nahaadhe bal ninkaaga iiga warran siduu ku yahay weysada markaasaa waxay tidhi haddii uu guriga ka baxayana weysu ku baxaa haddii uu seexanayana weysu ku seexdaa islaantii sixiroolayda waxay tidhi naa ninkaa ha ku daalin waxba la heli mayno ninkaa ha ku daalin waxba ma qabadsiin karre waxaa aniga ii yimi nin ay rag isqabteen oo ay sixir u xidheen oo ay qabadsiin kari waayeen maalin galab galbaha ka mida ayuu meel tuule ah buu ka carraabayoo gurigoo meel yaro fog ayuu u carraabay burcaa laygu keenay yurowe markaan deganaa ninka dabeedna markuu salaaddii maqrib tukaday ayuu ul yaro leexday meeloo uu kaajay uu iska bi'iyey uu dhaqaaqay mar allaaliya markay weysadii ka jabtay ayaa gantaal waxaynaan dee nabarba halkaa kaga dhacay aan muuqanayn ninkii wuu sooxay barqadii dambe ayaa dadkii waddada marayay ay soo heleen isagoo koomo ku jiraa la ii keenay markaan qur'aankii ku aqriyey ayay wax ka dhaxadleen jibankii la adeegsanayay sixiroolayaashu marka waxay yidhaahdeen intaasoo sannadood baan daba soconnay oo aan jaanis ka weynay galab caynkaasa ayaanu halkaa ka helno markaasaanu gallay hadhow markii ilaahay uu ka saaray wixii ayaan warsado waxaan ku yidhi galabta caynkaa iyo caynkaas ahayd markaad carrowday halkeed kaadida ugu leexatay halkaa markii aad kaadida u leexatay aad iska bi'isay wixii ka dambeeyey maxaad ka xasuusataa markaan kaadidii ka dulkacay aan iska biyey baa war iigu dambaysay bay buuri baa war iigu dambaysay qiso kale oo aniga laftayda ila kulantay nin baan 8 maalmood qur-aan ku aqriyey waana la sixray jinkii ku jiray ee camiilka uu ahaa sixiroolaha ayaa markaa wuxuu ku hadlaya carabka ninka 8 maalmood baa wada hadal noo socda de qiso dheer bay noqonaysaa waqtigay naga qaadaseen jinkii markaa wuu muslimay jinkii sixirooluhu soo dirtay martiini baa la odhan jiray magaciisa magacaa baan ku yidhoo martiini baa la yidhaahdaa markaasaa casarkii dambe ayaan intaan suuliga galay aan soo istijaystay baan soo noqday anoo weysiisan waan ilaabay waa markuu muslimiid ka bacdi markaasaan qur-aankii ku bilaabay wuxuu yidhi waryahay maxamed hee war orada soo weysiiso markaasaan ku yidhi war waan weyse qabay maxaad u jeedaa war wallaahi ma weyse qabsada war soo weysiiso hay markaasaan xasuustay inaan weyse qabin waan kacay markiiba waan soo weysaystay markaan soo noqday waan ku yidhi martiiniyow maxaad ku garatay inaan weyse qabin waxaan ku gartay u yidhi difaacaaga jilicsanaa haddaan gaalkii ahaan lahaana waan ku dhaawaci lahaa haddaan sidaydii gaalnimadii u haysan lahaa wax allaale wax iga kaa xigay ma jirin difaacaaga adkaa marka weysadu waa difaaca waxaana la yidhaahdaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka haddii aad dagaal ku jirto ood intaad hubka dhigato aada cadowgii afka uga gasho maxay kugu samaynayaan way ku xidhxidhanayaan way ku garbaduubayaan marka alwuduu silaaxu lmu'min waxaan tajribaynay weysada iyo jamaca salaada iyo sadaqada saddexdaa maado wax uga baawar weyn daaweynta xanuunada sixirka iyo isha iyo xasadka maanu arag weysada iyo salaad maxaan ku idhaahdaa sadaqada
iyo jamaca salaada saddexdaa maado wax uga awood badan saddexdaa difaacooda maan arag anu intaan baabkaa ku dhex jiray maantana wuxuu nebiyullaahi yacquub ina barayaa inaan waxeenna iyo awoodda ilaahay ina siiyo dheeraadka aada haysatiyo mawhubada ilaahay ku siiyey inaanad ku goolaaftamin oo aanad bannaanka soo wada dhiganine aada isla gaabiso wixii ilaahay nicmo ku siiyey wuxuu ku yidhi markaa nebiyullaahi yacquub wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa albaabo kala tagsan ka gala anigu haddaan yacquub ahay buu yidhi wamaa ugni cankum idinkama kaafin karo xaggiinna min allaahi shay-an anigu ilaahay idinkama celin karo laakiin asbaabtaan la imanaya in ilxukmu xukumka uma sugnaanin ilaa lilaahi ilaahay baa guddoonka iska leh xukumka ilaahay baa iska leh wuxuu xukumana anu ma celin karo laakiin ka waalid ahaan iyo ka caalim ahaan ka nebi ahaan intaan ogahay inaan annagu asbaabta la nimaadnaa nala faray calayhi tawakaltu ilaahay baan isku halleeyey oon tala saartay wa calayhi ilaahay korkiisa uunna falyatawakal ha tala saarto almutawakkiluuna ciddii wax tala saaranaysaa tala